saddex qof ama afar qof oo min konton kun aan siino oo seeraarna bamba ku tuuro caawa xidigna bamba ku tuuro kadibna ama weerar oo daqiiqada hal daqiiqa soconaya xabad ilaahu iridda maa laga rido lagu rido bambana lagu tuuro laga soo cararo yaa kala hadlaya arrintaas cabdiraxmaan dheere yaan u baahannahay wuxuu ku leeyahay in bam inta lagu tuuro waa ragga ila shaqaynaya waay ragga bambada lagu tuuray ama gudaha loogu rido haddii la rabo ama agtooda lagu dhufto waxaan u baahannahay ciidan ayagana si xaalad loo abuuro si xaalad loo abuuro marka nimanka maxaa la leeyahay idin soo weeraray marka waxaa la leeyahay waxaa idin soo weeraray maamulka axmedoobi kadib berri maxay samaynayaan marka ciidamay qaadanayaan ilaa dad baa ama laga dilay bambada dad bay dili berri waxay samaynayaan ciidamay qaadanayaan waxay weerarayaan marka xarumaha ku dhow ciidanka halkaa maxaa ka bilaabanaya macnaha fitan marka nimankii ay abaabulayeen oo ay lacagta siinayeen waa shaqayn waayeen adna dhinac kale ka soo mar bamba tuur way shaqayn waayeen macnaha dad noo diyaarin min konton kun aan siino caawana bambada ku tuuro 30 kun baan u hormarinaynaa 20 kun aan siinaynaa oo gud doorasho cusub si loo mashquuliyo maadaama la yiri bil noogu dara doorashada oo cidda ay rabaan ayaga u keensadaan way socon weyday marka nimankii la waayay wax laga helay gurigiisa nin gurigiisa laga helay labada ninba waa loo tegey waa loo aad baa loola hadlay waxaa la yidhi nimankan ka soo saar meesha sidii baa looga soo labadii xubnood meesha looga soo bixiyey marka mafduub bay ahaayeen mise guriga ugu yeeray taleefanadu ka damiyey labadiiba guriga ugu yeeray asaga awalba kusoo daray xubnahan asay ka socdeen oo dee labada xubnood asaa ku lahaa guddiga maaragtay marka labadiina taleefanada habeenkii marka meesha wareer baa ka dhacay oo taleefanadii waa la waayay guddi doorashadana shir bay lahaayeen marka waxay noqotay xataa in maaragtay pagekii facebook ay guddiga doorashada ku leedahay xataa qoraal waxaa lagu soo qoray ah in maaragtay doorashadii maalmo la dib dhigayo ama golihii baarlamaanka la xulayay deegaanka maalmo la dib dhigayo guddoomiyahana ma ogeyn marka admin buu ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka admin ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka iyo gabarna waxaa ninka la yidhaahdo janan yaa gacanta ku hayay marka meesha laga soo galay waa aragtaa nimanka soo daaya la yiri marka nimanka de waa axmed dad buu u diray waash waa la wada hadlay ninka waxaad u baahan tahay waa lagu qabanaya lagu yiri marka wuxuu yiri waxaan rabaa 18 xildhibaan maaragtay maamulka ku leeyahay meeshan in aniga soo xulo dadka aan ku leeyahay dhowr xildhibaan in la siiyo waxaasuu ku doodayay waa lagu siin baa lagu yiri adigu sidii bay ku dhacday khilaafkaana sidii baa lagu damiyey uu qaban waayay laana waxaa ka baawar batay oday dhaqameedyada iyo shacabka Jubbaland degan yaa lacagtii Fahad Yaasiin iyo culayskii la soo saaray janan waxaa ka baawar batay oday dhaqameedyadii iyo xalintii deegaanka dhexdiisa la xalinayay saa darteed marka waxaa arintii inay danto oo Cabdirashiidkii la qabto oo la yiraahdo inuu u kaadi odayaasha ay dhex galaan oo isaas yay noqotay waxaa fashilmay meesha marka isku day labaad tii koowaad Etoobiyaanka oo cadaadis Axmedoo saaray si doorashada loo dib dhigo isku day labaad oo guddiga doorashada soo kala dhex galay halka marka waxaa fashilmay labada isku day marka doorashadii baa marka soo guda gashay waxaa ila soo hadlay nin la yiraahdo taliya cilmi anoo ay ranoo taliya cilmi wuxuu yahay horta marka hore Cabdiraxmaan ila soo hadlay wuxuu yiri waxaan kula soo hadashinayaa taliyaha ku soo wacay nambarkaagan si taliya cilmi nin la yiraahdo soo wacay assalaamu calaykum waraxmatullaah marka qaabku ila hadlay si maaragtay aniga waad garanaysaa dadku nin walba hadallada dadku u kala calaamaysan yihiin marka waxaan u arkay sargaal shabaab ah wax isoo wacay inuu marka sargaal uu shabaab yahay sababta akhiyo sayta xaaladda ka waran magaca uu ii sheeganayo inuu magac been yahayna waan gartay sababtoo ah qofka hadalkiisa ka garanaysa marka xataa uu yeerto marar qaarkood waxa laga yaabaa inuusan magaciisa rasmiga uusan ahayn magaca muxuu ku sheegay cilmi doctor taliya cilmi aniga marka investigation marka akhiyo wuxuu leeyahay waa nambarka la soo siiyay qaybta waxaan qaabilsanahay militariga oo nisa qaybta qalabaynta ciidamada iyo waxaan qaabilsanahay nambarka la soo siiyay waxaan rabaa inaan arrin kala hadlo marka munaasab ma tahay inaan kula hadlo marka munaasab waan ku yiri ma laha ila hadli kartaa wax dad ma ku dhow yahay waa maya okay waan ku soo wacayaa iska jar isla daqiiqadoodana way igu soo celiyeen marka sikin wuxuu sameeyay waa ila soo hadlay wuxuu yiri niyo waxaan rabnaa cornel baa tahay waa la ii sheegay cornel dowladda federaalka tirsan oo nisa xafiiska taliyaha nambarkaasi aan ku soo qaatay waxaa laga yaabaa shaqo aniga khusaysa inaad maaragtay nambarkaa la ii soo siiyey si aan kaala shaqeeyo waxaan u baahanahay niyahowni
meesha doorasho yaa ka socoto boob baa socda doorashadiina beridan bay dhacaysaa waxaan u baahannahay adiga oo maaragtay amarkii dowladda qaadanaya iyo amarkii maaragtay taliyaha aniga waxaa laigu soo amray inaan kuu sheego in lagu amrayo in maaragtay laga shaqeeyo sida doorashadan loo joojin lahaa aniga marka waxaa ninka numberka maan ka soo khaldamay reality ayaan le waan yaabay ha macnaha de waxaan sugayo ma aha hataa la ima dhihin hebel soo wixii waxaasuu kaala hadlayaa ma garatay marka ninkii waan yaabay waxaan iri bal hadalkiisa aad dhuuxid meeshuu ku socdo waan wareystay marka haye maxaa jiro see marka rabtaa in lagu joojiyo meeshuu doorasha ka jirta deegaankii waa systemku si fiican buu socotaa waxaana waardiyeynaya doorashadii golihii amnigii waxaa isku darsamay kii amisom iyo kii dowladda jubbaland si nidaam bay u socotaa wufuud baa imanaysa caalami ah marka maxaa waye waxa kale aad qaabka loo joojinaya la sheegaya marka wuxuu yidhi waa diyaarsan yihiin nimankii la dhihi jiray isbedel doonka dhankan waxaa degan buu yidhi xidig oo ciidan wuxuu haystaa buu yidhi 40 nina dhankan seerar baa degan guriguu degan yahay ilaa 5 guri oo kasoo horjeedana asaa degan waa diyaarsan yihiin adiga bas waxaan kaa rabnaa in saraakiisha gudaha ciidanka joogta inaad maaragtay aad la kala furfuro labada maalin nagu soo aadan kadibna waxaan u baahannahay marka in maaragtay doorashada aysan dhicin ilaa Etoobiyaanka waxaa la rabay in doorashada lagu joojiyo guddiga doorashada waa la dhexgalay in doorashada lagu joojiyo la rabay haddana nimanku macnaha way wareereen qaab kale lagu joojiyo raadina doorashada beri dambe dhacaysaa marka ciidankaad kala furfuraysaa ku leeyahay ciidanka kala furfuraysa marka waxaan ku iri waniyahow waxaa tiri seeraara ciidan haystaan tiri anu seeraar ma ogaan ku iri iyo ninka la yiraahdo xidig ciidanka ay sheegaysin hal qasnadood bay haystaan hadda dadka dagaal galisaan oo dagaal ku abuurtaan waxa way 30 minute ma soconaysa xabadda nimankan aad baxarka gelinaysan leedihiin dagaal baa la gelaya hub ma haystaan saarsaas ma haystaan dhaawacooda meel la geenayo ma laha in base ma haystaan seertan dadka inaad dagaal ku galisaan mise wixiina waxaa rabtaan in gab fawdo oo meesha kismaayo dagaalka idaacadahan aad ka heshaan tirada waxaan sheegaynaa waa dagaal socda waa hal in la joojiyo intaas aad ka rabtaan wuu qoslo wuxuu igu yidhi daqiiqadan hadda aan kula taaganahay waxaa weeyaan 100,000 oo maaragtay gorod oo rasaas ah waxa weeyaan 10 daqiiqo waan kusoo gaarsiinayaa nimanka ay sheegayso waana wada hadalnay ciidan xabaddu markay bilaabato ciidanna waxaan kasoo dejinaynaa airportka ay leeyihiin nimanka Etoobiyaanka oo madaxtooyada dhabarkeeda ku yaalo marka midaas annaga inoo fooda markaas waxaan ku wada Muqdisho joogtaan xabadaad niman bilow leedihiin waqti bay idinku qaadanay inaad marka nimankan hal qasnada haystaan su'aashii baan haddana ku celiyay say u soo gaarsiin kartaa markaas wuxuu yiri soo kuma dhihin 10 daqiiqo gudahood baan yaan rasaas ku soo gaarsiinaynaa jaa waxaa marka su'aal saddexaad kuma celin waxay soo cadaatay ninkan ila soo hadlaya magaca waa loo bedelay nimankan neysa iyo nimankan shabaabka inay xiriir meel kale yihiin waxa rasaasta kismaayo gaarsiinaya xabad bilaabatana inay nimankan neysa yihiin kaas waxaan ku orniyo anigu shaqana la ima siinin la ima dhihin shaqadaada way bilaabatay warqad rasmi oo cadeynaysa inaan korneyl ahayn la ima siinin marka inaad tiraahdo dawladdu waxay kuu soo amartay arrinta aadaan uga xumahay taliskii ciddi ku soo dirsatay yaad la hadlaysaa baan ku iri tan kale waxaan ku iri meeshan waxa aad sheegayso iyo qaabka u hadlayso iyo wax meesha yaalla farqi weyn u dhaxeeya marka waxaan ku iri malaha nambarka kaa khaldamay uu jaray teleefankii 10 daqiiqo kadib waxa soo wacay xafiiskii waxa laga soo wacay nisa waxa soo wacay Yaasiin Faray oo ah taliyaha istibaalku ah niyo waan ka xunahay ninkii taliyaha uu shirbu ku jira anuu isoo fariin ninkii lagu soo diray waan ka xunahay nin wuxuu ahaa qaab kale wax ku wada wuxuuna rabay inuu sumcadda taliska ku ciyaaro arinta lagu sheegayna waxba kama jiraan ma aha wax qaabka inay wax ka jiraan isla markiiba ilaa waan diiday soo maaha daqiiqadii waxa la isku dayay markii in la isbari yeelo waxba kama jiraan ninkaana isma wici kartaan saacadan laga bilaabo kuma soo wicin aniyahu shaqadii lagugu idmaday wali waa lagu jiraa karaal noqo waa laga khaldan yahay in maartay barnaamij aan in maartay aadan shaqo ku lahayn in lagu marka waxaan arkay khatar weyn inay marka ninka hadalkiisa waxaan kala soo dhaxbaxay in Jubbaland khatar badan ku soo wajahan yihiin khataradaas oo ah nimankan maamulada xataa nimankan maxaa weeye isbedel doonka in waxyaalo been loo sheegay oo leeyahay
ومجالات إن لجونا وحاس أيدين كيننا رصاص أنا أيدين كين وأنا بين وح كجر مرة وحال الربع بسون ماشوا إني حبتك باللعبته كدمنا وزيرك دبي إنه ظافر يستو إذا عدى وإذا وحن عالم كل شيء جينا وحاس ماشي دور شباب كسعودها وكديال بكسعود دق وين لو جوجيا أيوة أنت هذا يكربان وين دور شاء لجوجيا مركا أرنت مركا وحنا معي مركا أحمد إن أنا كلا شارقري عنده أرنت صور كنا وان أركي أرنت كلام مركا أحمد مركا فرينا أمدري أحمد وحنا ربعنا سيجوني كو أركنيه سيجوني كو أركن مركا لا هي أحمد وحنا أركي إن دقاقي صحتها إن ما أركتي لا صعده أو لا صعده وحنا تحت كو كانوا كبودي ما إن من إمارات يمد أنا ما بقولين أنا بسمعي جو ما نقولين وحي سو عاد وحنا يروحون إن إمارات يمد ديار خاصة لو كاني waxaan laga soo qaaday airportka ninkaasi haddii xogtiisa la helo oo ama sawirkiisa la helo waxaa farmaajo ifadaysin waxay ballan qaadeen $100,000 in la siinayo markaas waxaan ku wari nimankii shabaabka xogtooda soo gudbinayo la yiri boqol baa la siin baa xogtii markay soo gudbeen ayaga la dilay $100,000 adiga aad sheegayso oo leedahay nin imaaraada marka macnaha waxaan ku sheegayaa la macnaha nimankan warbixinta rasmiga ah oo xataa nimanka siyaasiyiinta qaarkood aysan haynin waxyaalaha axmed khaaska ku ah oo asaga muddo waxaa jira axmed xukuumaddiisu wax ay la wadaagayso iyo wax asaga de waa madaxweyne waxyaalaha asaga khaas u ah waxyaalaha khaaska u haya xataa ninka Fahad Yaasiin uu faragelin jiray macnaha uu faragelin ma ku hayo xogta wuxuu isku day jiray inuu helo uuna heli jiray 70% cid kastoo la kulmay dhaqdhaqaaqiisii ha uu heli jiray ninkii imaaraadka marka asaaba ku sheegay inuu way asaa ii sheegay anigu marka waan yaabay waxaan ku ma garanay tan kale waxaan ku wadi meel xaafad koraan degan waan xanuunsanahay maalmahaas marka halkan uga booday laakiin nimankan markay hadallada soo noqdeen aniga markiiba waxa ii soo baxday nimankan inaysan wax shaqo ah aysan ii haynin marka 100,000 la siinayaa ninkii keena sawirkaas wuxuu adiga kula soo doonto waxay ahayd inaad keeni karto marka anigana waxaan ku wari meesha ma joogo tan kale aniga already waxaan difaaca galayba maalintii ninka uu yiri meesha dagaal haduu ka bilowdo waxaan soo gaarsiin karnaa saan ku sheegay waxaan go'aansaday marka nimankan waxay wadaan haday soo wacaan inaan ka qabto dheeraana shaqadii waatana waa diyaar haday wax ay weydiiyaan inaan ugu soo gaabiyo niyo anigu taasi shaqadii aniga aan ka shaqeynay mi wasiirra u xilsaaran idinku dawlad baa tihiin haday meesha talisniisa jira oo Khalid oo idinka aad soo wadataan waxaa jira allah musta'an wasiirra jira oo idinka la kulmayseen oo fadhiisin uu la kulmay ayaga weydiiya marka waxaad dareentay ballanqaadka shaqadu inuu yahay dabin inuu yahay oo lagaga faa'iideysanayo intaad shaqada sugaysid in macluumaad kale iyo shaqooyinka lagu diro exactly ma bisha ay qabsadeen anoo awal bayaabana fuudeeda yaa haddana waxyaalaha ay ugu soo dhaxdarayaan oo marna iga raali gelinayaan markaan dhaho waxaas macquul gal ma seed ku wadaan wala iga raali gelin oo khalad bay hedaa leeyahay 3 bari kadibna tii oo si kale u sarbeebsan yaa lagu la imaan marka aan shaki ay galay waxaan arkay nimankan inaysan shaqo haynin marka ballanqaadka shaqadu wax waa iska dabin baaritaan aan bilaabay marka baaritaankan bilaabay waxay ahayd dad badan oo waxaan la xiriiray Muqdisho jooga oo nimankan la shaqeeyaan qaarkood banaan cili qaarkoodna ka carray wadanka waxaan ogaaday nimankan totaliba waxa weeyaan qofka ay wax barnaamijkan aniga ugu wadaan dadka ay ku wadeen amal laba ay u qaybsadeen qof la jaan qaaday ayaga oo ilaa hadda kuwa la jaan qaaday amal oo sida saraakiishan hadda ka haramacad ninka haystay iyo rag baa gacmaha dhiig kula jiro oo dadkoodii ehelkoodii laynaya oo la jaan qaaday oo ay ku jecel yihiin sidaasoo ayaguna ay ka dhex arkaan inay ku adeegan karaan ayagana u arkay inay gabaad u yihiin iyo qof ka soo horjeestay ay dileen iyo qof faraceeda kaga baxsaday ilaa missionkooda qofkii ay u sheegtaan ay u soo bandhigaan haduu ama yeel hadaa diido soo maaha ama waa ku xirna dambi lagu yeeli ama waxa weeyaan waa maqanta waa lagu dilayaa horta waxa ila soo hadlay Cabdiraxmaan Dheere wuxuu yiri taliyahadan kula soo hadlaya waa muddo kadib marka doorashadii hal bariya ka dhiman waa wix badan waa fashilmeen waa ila soo hadlay wuxuu yiri arin aan kugu talagalnaa jirta shaqadaadina way gabagabowday waadna shaqo bilaabaysaa wixii hadda ka dambeeya saan hore kugu sheegayna haddana waxaad u shaqaysaa taliska nabad sugidda waxyaalaha uu qarankaaga baahan yahay iyo hiilne inaad qabato waad ku qasban tahay ani marka waan dharagsanahay waxaan ka dharagsanahay nimankan mu'amaradooda okay waayahan ku marka waxay dhaheen akoonkaaga bari fiiri so after that waan kula soo hadlaynaa waayahan ku yiri marka ayaan loo waxaa jirta marka dad badan oo wasiirro ah oo xataa dhaqaale siiyeen
marka dadku laba ay u qaybsameen qaar axmed u sheegeen inta u tageen waxay ku dhaheen waniyow lacag la soo siiyey lacagtaana waxaa la yidhi jubbaland burburiya haddii lacagta waan soo qaadanay annagu nimankaas la mowqif manin kuwane wixii waa u socon waayeen oo intay isku dayeen sida nimankan isbedel doonka iyo ninkii lihi jiray janan isku dayay sameeyeen u socon waayey waa niman macnaha la galay wax dadne waxay u arkeen nimankan laqaalaha ila wareegayaan intay lacagta ka qaataan inay iskaga tagaan ku taagan kir dad badan intay lacag qaataan iskaga tagay oo wadanka iskaga tagay ani marka nimankan inaan la guriyaan damcay horta oo go'aankay ugu weyn uu ahaa bal nimankan dadka istaraatiijiyada rasmiga ee Jubbaland ay ka damacsan yihiin aan ogaado waxaan ogaaday Omar baa la yiri madaxweyne loo wadaa Omar kow inaan madaxweyne loo wadin sid ku ogaatay waxa weeyaan waxaan ku ogaaday tiimka Cabdiraxmaan Dheere la xiriir waxaan ku oranayaa waa isdabar jibinaysaa ninka Omar la yiraahdana waa madaxweynaad ku wadaan hadhowna dee waxaad rabtaan in meeshii wax aad rabtaan aad ka samaysaan marka Omar ma qaar saar ahaan u wadaan oo idinka kor ka maamulaya oo idinka wada mise xafiiska madaxweynuhu ka socdaa oo madaxweynaha idin soo dirsaday idinku garbaad siinaysaan macnaha waxaa jira fadhiisin uu rasmi u wato iyo wax recommendation ka yimid madaxweynaha oo fadhiisin la yiri ninkaasi meesha gaarsiin wuxuu ugu yiri waxaas oo dhan wax kama jireen waxa weeyaan Omar waa iska maqaar saar wadankan waxa weeyaan Kismaayo waxa la rabaa nin kale madaxweyne loo wadaa laakiin ana madaxweyne ku xigeen la iyo wada waxaana ballan kaga qaadi hadii markii aan insha Allah saddex bari kadib aan soo afjarinaa buu waxan macnaha waxay leeyahay Axmedoobe in la soo afjari doono ama balaayaha ku salidaan ayagu waxay leeyahay basiid Axmedoobe Ethiopian-kana ballan qaadi u sameeyay in la soo afjari doono nimankan meesha joogana been ay u sheegaan nimankaas bedel doonka waxa weeyaan nin walba iska qortay 100 nin ciidan ay joogta bari xabadan bilaabi karaa marka nimankan kalsooni isgina ayaga naftigooda ruuxi Kismaayo jooga markuu nimankan la xiriiro uu ku dhaho ay dhan waa yaab hadii kalsoonida leeg maxay jirtaa marka jiraan marka ciidanka ay sheeganayaan ma jirto ninka ugu badan baa 20 nin haysta ka ugu badan qoryaan ma heli karaan sababta meesha Kismaayo wuxuu ku yiri isbedelka qofka kuma sheegin marka madaxweynaha noqonaya ana madaxweyne ku xigeen leeyahay waxaaba laga yaabaa kulaha adiga inaad maaragtay aad fursad heshid hadii macnaha qaranka si fiir wuxuu yiri hebel odawaa iyo hebel fursad heleen fiir iyo taliyaan hadda waxay ku heleen wixii la siiyay xujadii la siiyay ee dawladdu siisay bay ka gudbeen macnaha dadka waa taliyaasha ciidamada loo magacaabay taliyaha ciidanku sheegaya waa dadkii la isticmaalay way macnaha waa dadkii waxay dadkoodii baabi'iyay marka wuxuu ku leeyahay raggaas oo kala noqon kartaayo wax qabsadno oo daacadno waliba waxaad gacanta ku taagto waa lagaaga haray marka waxaan ku yiri waxaad xidig u qaban weydeen oo seeraar u qaban weydeen anoo waxba idin qabanin sayd igu qaban kartaa in la seeraar baa inta ka booday xidig uu booday waa arag Kismaayo madaxweyne isku sheegay tan kale waxaan ku hal su'aalan weydiiyay waxaan ku yiri yaad madaxweyne u wadaan seeraar waa difaac waad wadaan waxaad leedihiin adaan madaxweyne soco xidig waa wadan adaan madaxweyne soco wixiina niyo waa iska fowday aniga xataa ballan qaadida ay sameeyeen waa fowdaan ku yiri ilaa hadda wax run ma arag waay erigaas markaan eris waxay dambe waxay dhaheen akoonkaaga fiiri markaan eri wixiina waa iska fowdo laana waxaan ku yiri madaxweynaha yaa madaxweyne u wadaan seeraar madaxweyne u rabaa xidig madaxweyne u rabaa Omar waan wadnaa baad leedihiin idinkiina sugid waak intaad ka ordaysaan Jubbaland waa saddex maartay region la isku daray haddii gobolka Gadaxta uu maqan yahay labadan gobol yaad madaxweyne wadan 5 nin baad wadaane kana waa taageeraysan hadii wixiina waa foodan ku yiri anigana ballan qaadida ay sameeyeen waa foodo waxna in kama hayaan ku yiri ilaa hadda waxaan ka ahayn ama bixi ay soo siiseen nimanka marka waxay isdhayn show ninka wallahi waa runtiiso waxba kama aniga marka waan jaago aanan gaaray ilaa nimanku waxaan ka arkay inaysan waxba ii wadin baaritaanna waan sameeyay waxay soo baxay marka waxaan go'aansaday nimankan lacagahan qadar iska socdo iska ordaya bal waxa iigu tala galeen bal inaan horta indhaha saaro inay waxan been ka tahay oo sida nimankan ay beenta ugu sheegayaan inaan ogaado xaqiiqda ay nimankan akoonkaaga fiiriya lagu yiri marka waxa la soo xiyay akoonkaaga fiiri waaga markuu bariyay akoonkaaga fiiri 3 saac markay ahayd markaas waxba kuma jirin WhatsApp aan u qoray waxaan ku yiri akoonka aad sheegayso waa sheegayso
waa un beentii asiraari u sheegaysiin baan ku yiri ninka la jiray yaad u qoraysaa markaa Cabdiraxmaan Dheere waay marka dadka halu goyno waxaan ku niyo shaqaba imaysan baan u malayne waa Axmed Kaano iska daba socdo Axmed kaas aan iska garaacdo ay dhanta ما degdegan buu yiri niman baan la hadalnay waa lagu soo galinayaa 4 saac 5 saac 6 saac markay taan fiiriyay akoonkay waxa ku jirta lacag 200 kun $200 runtii waan filan waayay meel cilaan fadhiistay su'aalan isweydiiyay weliga $200 akaan ku dhacday badan waay waxa weeye lacagta ugu badan marka wax jira 20 kuna ya 200 kuna marka waan ku noqday waay haddana waan yaabay kadib waan la hadlay waxaan ku yiri akoonka lacag ku jirta laakiin lacagtu aad ay u tiro badan tahay maxay tahay marka lacagtan ma lacag budgetkii maadaama ay tirahdeen waad noo shaqaynaysaa oo focal point ma tahay ma sidii miisaaniyadda oo loogu sameeyo baarlamaanka iyo dawladaha bad miisaaniyadda igu sameeyeen baan ku wari oo wax leedahay oo sanad ah oo lacag sidoo oo laba sanad ku shaqaynaysa lacagtan ay leedahay mise waa wax kale ma waxa kula soo hadlaya taliyaha anu kulay ma garanayo anu amra la soo siiyay inaan lacagtaas ani markiiba ma ku degdegin lacag saddex maalin taliyaha uu leeyahay amiirku leeyahay mar walba ana taliyaha hada isticmaalay waay ani markii lacagta kuma degdegin mana tagin bangi lacag leeyahay ma tagin waxaan sameeyay markaa waan sugay waa la soo wacay waxa la yiri niyahownii doorashada waa bari dambe adigana shalay waa wada hasheen waxaad shaki gelisay ballanqaadida aan kuu sameynay sidoo kale aduu lacagta aan ku siinay aan ku soo dirnay waxaan ugu talagalnay in aad ku shaqo gasho shaqadaas oo ah sida xidig iyo siraar ay guryaha u kureysteen inaad guryo u kureysato baabuurna aad samaysato staff inta aad heli karto oo reerkiina ah aad samaysato haye kuwaas kismaayo joogaane adigu dhowley waa degi kartaa afmadow waa degi kartaa aad meel ka soo jeesato waxaana ku ballan qaadaynaa hadday 200 qof aad xataa qorato 200 qof mushaarkooda inaan bil walba meel ku saarno waxaan kaloo ku ballan qaadaynaa lacagtaasi inaad hadda si fiican ugu shaqeyso oo natiijada aan aragno lacag ka badan inaan soo gelin doono runtii waan aadan u naxay sababtoo ah nimanku way og yihiin inaan taliye ciidan aan ahayn marka waa loo cusub ay abuurayaan waxaan arkay deegaanka inuu khatar ku jiro runtii in waliba deegaanka bas meeyahay annagii nafsad ahaantanada inay khatar ku jirto baan ogaaday tan kale wuxuu yiri lacagta aan ku siinay aduu qayb baan ku siinay hebel waxaan seeraar waxaan siinaa 200 kun xaflad walba la qabto 30 kun 40 kun baan bixinaa haddii aad ku darsanayso xaflada iyo mudaharaadyo aad qabsanaysiin sida nimankaas oo kale waxa weeyaan lacagtu way ku ziyaadi marka waxaan aragay in la rabo wadankan amniga runtii kismaayo amniga ka jiray ayaan loo waxa iska soconaysaa saqdho habeen 6 saac habeenimo aniga 7 saac habeenimo madaxtooyada ka bixi jiray staffnimo wadan jirin xaafad dalxiiska leeyahay degnaan jiray almost 3 kilometers way marka magaalada in qalqal la geliyo magaalada marka amnigeeda khalkhal in la geliyo oo dadkii maaragtay iyo dawladii shaki la kala geliyo oo cadawgii fursad loo siiyo nimanka shabaabka inay geli karaan xilli walba magaalada amnigeeda gacanta ka baxay shabaabna way soo galayaan oo cid ay rabtay ku sameeyaan marka la kala garan waayo yaa dadka dilaya macadow baa dilay sida muqdisho hadda loogu wareersan yahay oo maalin walba dadka loo laynayo marka waxaa la rabay in si maamul goboleedka kale laga dhigo lacagtaadii waday marka lacagtii aan ku waday lacagtii marka anigu ma dhaqaaqo akaunka kala baxal lacagtii marka waa ila soo xiriireen hadda ninkan ku sheegay cilmi la dhahay ba haddana ila soo xiriiray oo lagu yiri martaba kulama soo xiriirayo wuxuu yiri bas anigu waxaan kula soo xiriiray lacagtaas akoon kala bax akoonkana xir xir kadib lacagtaas waa lagu soo sheegayaa 200 kun waa soo bixiyay horta soo bixinteeda dhib igu noqotayba in la soo bixiyo ayada waxay noqotay shaqo kale waa lacag badan waa lacag aad u badan cid walba meesha ani marka hadee nin wax isku hubana ma ahayn waan ogahay nabad sugidda Jubbaland ka shaqeyso meelaha ay awoodda ku leeyihiin bangiyada xawaaladaha waa qasab inay nabad sugidda hoteelada kale la degayo meelaha maaragtay xilliyada doorashada kale isleeyahay waxba ka iman kara oo dadku deegaanku carqalad gelin karo inta badan nabad sugiddu xoog waa inay saartaa marka waxaan islahaa lacagta inta ka badan qof markuu Cabdullaahi bixiyo
su-aal baa ka iman doonto hadhowaanaan in la soo raadiyo la dhaho lacagta inta yaa ku soo gaartay maxay ahayd wax isoo raadiyey ma jirin lacagta waad la baxday akoonku waad xirtay lacagta waan bixin akoon ma xirin akoonku Muqdishoan ka furay totally ba akoon ma xirin ma dhiina la xiro lacagta meesha ka timid ma garan kartaa lacagta marka waan baaray aniga shakiyada igu jiray waxay ahayd nimankan cid ay adeegsanayaan inay nimankan shabaabka yihiin lacagta waxaa la yiri ninkan weydiiyay waxaan ku yiri lacagta laga soo dhibisgareeyay waxa laga soo dhibisgareeyay yiri laanta bakaaro suuqa bakaaraha lacagta 200 kun 200 kun tii hore 30 kun ahaydna tii 20 kun tii ma weydiinin waay bas really waxa weeye lacagtii markii bakaaraha la yiri iyo ninka isoo wacay qaabka u hadlayo waxaan fiirsaday nidaamyo badan inay meesha ka socdaan kadib wuu ila soo hadlay lacagtii waan hayaa haddaad hayso hore u soco waay shaqadaadii qabso waad idman tahay waa lagu idmay shaqadaadii qabso magaaladu maaragtay shaqaha ka socoto shirar bilow marka ayagu waxay rabaan in qabiil ahaan la isugu dhaco waxay dhaheen cawliyahankii wakaas meel baan geynay maqaal meel marka dadkii waxay u kala adeegsadeen qabiil waa hore la isku dayay in laga bogsoodo in dadkii dib loogu soo celiyo iyaga ka sheekeynaya ku dhahaysa ayaa ka sheekeynaya marka Axmed waxaa looga adkaan karaa nin reerka nin ama jifada ama u dhow inuu ka soo horjeesto hadhow ciidamada samaysanaysa hadhow ciidamada samaysato naciib Axmed hadii lagu abuuro ilaa waxay ku leeyihiin dadka aad ka soo jeedo iyo Axmed annagu waan ognahay inay reerka ka soo jeedo inuu naciib inuu jiro taa darteed dad ciidamo samaysato waxa imanaya hadhow suuqa barsiin indhaha la isku tagtaago maalin dambe Cabdullaahi baa la weeraray berri marka jifadaadii waxa weeyaan nin walba go uu soo qaadanaya halka maxaa ka bilaabanaya waxa ka bilaaban dadkii qoryo la isugu dhiibay qabiil waay 200 kun marka waa soo qaaday aniga subaxiiba waan kaan kuu sheegay horta waan guri baan isku soo xiray gurigayga waan fikiray waan yaabay lacagta intay ka timid nin baan lacagta u dhiibay habeenkii waxaan damcay in meel kale la geeyo haddana waan ka soo qaaday waxaan isiri ama caawa intay ku imaadaan ay dhahaan waxa weeyaan lagu soo weeraraa system wax kale imaadaa lacagtan amayba kuu tahay intaad gacanta ku hayso maaragtay badbaado adigu waxaan sameeyay marka dahabshiilan tagay akoon baan ka furay lacagtii waan ku shubay khatar inaan ku jiraan arkay ayaan loo khatar cadiim ah oo dhexda kaga jiro haddaan nimanka waxay sheegayaan beri dambe aan geli waayo shaqadoodii inay awoodi karaan magaalada bartankeeda taa waxa odayaasha ku leynaya inay ayaga yihiin inay awoodi karaan inay wax walba samayn karaan arinta igula yaabka badneed waxay ahayd isbedel doonka ayaga wata waxay u dhaheen niyahu isbedel doonka tallaabo waa qaadi laayahay tallaabo waa qaadi laayihiin waxaan u dirno way qabanayaan laakiin sidaan ugu talagalnay ma u qabanayaan waxaa lagu heshiiyey lacagaa la kala qaatay 300 kun 400 kun 500 kun loo soo diray hebel iyo hebel dagaal gala la yiri bari dagaal bilaaba waxaa laga yaabaa inay soo mudaharaadyo bilaabaan magaalada ciidamada ay magaalada dhex marmariyaan oo baawuro wato oo qaylinaya amniga magaalada wax xabad ku riday ayagana xabad ma riday Axmed ku riday istaraatiijiyada marka Axmed waa qaatay oo ah inaan nimanka isbedel doonka wax bal lagu ridin isbedel doonka wuxuu isku dayay inay xabad bilaabato gardarro samaystay xataa madaxtooyada irideeda xataa baawur intii la mariyay ba xabad lagu riday say nimankan xabad ugu furaan halka xabad uga bilaabato yiraahdo seerar ba loo weeraray loo yiraahdo waxa la weeraray ninka xidigaha xabad u bilaabato Axmed uu ka aqlib batay ciidamadiisu isku yeeray wuxuu ku yiri isbedel doonka hadii aad ku aragtaan baawurtooda magaalada socota ama ayagoo si qabdana sameynaya qof xabad ku ridi kara malaha sababtoo wax ka dambeeyo yuu ogaa nimanka marka halka looga raayay gacanta ka dambayso og yahay marka ujeedkoodu og yahay nimanka marka waxa looga raayay Axmed nimanka waxay rabaan dagaal inuu dhaco Axmedna si walbo dagaal looga waaqsanayo wuu isku dayay runtii marka go'aanka casiimada lagu qaatay Axmedooba yaa maanta heerkan soo gaarsiiyay Jubbaland oo inaysan xabad dhicin oo dadkii nabad doon xataa odayaal iyo islaamo intuu diray buu ugu tagay yaa loogu tagay meeshoodii ayadoo la baroonay loo in leeyahay joojiye seeraaro waxan way soo waceen waxay dhaheen nimankii wax way qabanayeen waxaan u baahannahay Abdullaahi team 3 qof ama 4 qof oo min konton kun aan siino oo seeraarna bamba ku tuuro caawa xidigna bamba ku tuuro kadibna ama weerar oo daqiiqada hal daqiiqo soconaya xabad ilaahu irid ma lagu rido bambana lagu tuuro laga soo cararo yaa kala hadlay arintaas Cabdiraxmaan Dheere
yaan u baahannahay wuxuu ku leeyahay in bam inta lagu tuuro waa ragga ila shaqaynaya waay ragga bambada lagu tuuray ama gudaha loogu rido hadii la rabo ama agtooda lagu dhufto waxaan u baahannahay ciidan ayagana si xaalad loo abuuro marka nimanka maxaa la leeyahay in soo weeraray marka waxaa la leeyahay waxaa in soo weeraray maamulka Axmedoobi kadib bari maxay sameynayaan marka ciidamay qaadanayaan ilaa dad baa ama laga dilay bambada dad bay dili bari waxay sameynayaan ciidamay qaadanayaan waxay weerarayaan marka xarumaha ku dhow ciidanka halka maxaa ka bilaabanay macnaha fitan marka nimankii ay abaabulayeen oo ay lacagta siinayeen waa shaqeyn weyn adna dhinac kale ka soo mar bamba tuur way shaqeyn weyn macnaha dad noo diyaarin min konton kun aan siino caawana bambada ku tuuro 30 kun baan u hormarinaynaa 20 kun oo siinayna kaas waxaan ku iri ma nimankii eragaas su'aalkan ma dhihin ma ninkii shalay waxaan ku iri magaalada mudaharaadka naagaha xabadda ridaya ee magaalada bartamay meel walba boorkiisa ku dhajistay ee wadada gurigiisa siinaayo dhan xirtay iyo ninka xirtay xaafadan mariinada oo idinka garab idin siinayay ba maanta leedin hal weeraro talaabo way qaadi waayeen buu yiri xabad way ridi waayeen waxaan u baahanahay nimankaasi marka nimanka macnaha aniga waxaan ogaaday inaysan ajiib waay tan kale waxaan ogaaday waxaan filaysaa ma waxa dhacay waxaan filay ma maxaad sameysay nimanka marka Soomaali waxaan ugu jawaabay waniga waxaan ku iri waxaas cid idin sameynaysan ya ma jirto aniga waad ii sheegteen qof kale oo barnaamijkaasi kala hadlayna tan kale waxaan ku iri waan ogahay waxa aniga mar walba igu dayeysaan inaad dad badan oo kale oo idin shaqeynaya oo u dirteen qof walba balqaad loo sameeyo qof walba uu sameeyeen marka niyow ka taxadara tan kale waxaan ku iri aniga shaqadeedii ima haysan sidoo marka dood xaalad baa naga dhaxwurantay ayaga marka xaalad naga dhaxwurantay waxay bilaabday marka taleefanadeedii inaan dansado taleefanadii lacagtina marka meeqa maalin gacanta ku haysaa lacagta marka gacanta ugu yaraan waxaan ku hayaa 5 bari waay taleefanadan dansaday totaliba taleefan markaan dansaday way waayeen iyo dhul meel uusan Cabdiraxmaan dheer iga raadin malaha taleefana meel uu dirin rag badan waxa taa wacay ku yiri Cabdullaahi maxaa soo galay ma iska weydiinayo dad baa xata shaki u galiyay waay marka halka ay marayso ayaa taleefanka dansatay waxaad u soo dhooftay Nairobi soo dhoofay intaad Nairobi soo dhoofin ka hor maxaa kale oo sameysay Nairobi waxaan kale oo sameeyay lacagtii aan qaar haystay horta nimanka waxaan go'aansaday xiriirkina u jaro habeenka waan istiqaaraystay nimankan inaysan Soomaalidan u ahayn waxaan u ahayn marka reerkaygu Kismaayo deganaayeen boos aan kula meesha nin lacag u dhiibay waxaan iri guri meesha la iga dhiso waxa weeyaan qasri ah oo ku nasto oo waliba beeralo aan ku raaxaysto lacagtii 200 kun nin baan u dhiibay lacag 780 kun guri ay dhisan ku iri because hadaan isqarinayo Kismaayo guri kama dhisteen ana marka maamulna kama cabsanay go'aanna waan gaaray waay de Axmedna de anigu Axmed dad badan baa lacagta qaatay oo Axmed qaarkood u tagay oo ku lacag baan soo qaadanay anigu fursad ay weysaad adiga fursadiina waan waayay tan kale waxaan ka hilmaamay markay barnaamijkan hal isku dira la yiri oo team hal sameeyay la yiri oo qorshe ay la imaadeen waxaan damcay Axmed inaan la kulmo jamcay ahayd waxaan imid masaajidka ku soo tukaday madaxtooyada markaan ku soo tukaday baan waxaan aaday markii madaxweynaha ku soo tukaday masaajidka kadib madaxtooyada yaan aaday madaxtooyadan galay waa la qadayni marka jamco weeyay madaxweynaha marka halkaas oo kale ku soo jeeda u qaday kuraas kale miis kale inta la jirto lagu qadayo dhalinyarta la socotay ku qadayso self service qadada waan soo ritay meeshan soo fadhiistay nimankii marka waa habeenkan taleefanada sarraba subaxdeedii waa jamcada way soo waceen maana ka qaban sawir whatsapp dhilow meesha fadhiiso ka qadanaysa koraan ka fiiri kormaan ka fiiri sawiraan arkay waa mad waay marka wii xiran yahay whatsapp ma arki karaan inaan furay in kale ilaa waxaan ka saaray calaamadii waxaan saartay inaysan arki karin dad furo calaamada buluuga waay waan furay waxaan arkay anigoo miiska qadada fadhiya oo qaadada aan hayo iyo galaaska hor yaalla waxa weeyaan israti ay yihiin war in qofka iyo hor sawirka iyo qaadanay qof saas oo kale meesha kale uu qaadan u yahay madaxweynaha la fadhida waxaana warbixin soo gaartay inaad Axmedoobe la sheer gareyn rabto oo xogta rasmiga aad la wadaagi rabto aan ogaanay saa darteed annaga wax walba waan sameyn karnaa aniga markaan arkay waxaan arkay khatarta Axmedoobe qoraan la soo raacay khatarta Axmedoobe ku sugan yahay
waxaa ka weyn mid aan ku suganahay ilaa axmedow waa shakhsi la raasanaye oo la rabo in maamulkiisa la burburiye ninka xogta xambaarsan ee la rabo in la dilo aniga inaan noqday aniga target noqday runtii markiiba go'aan waxaan gaaray meesha inaan ka baxo meesha aimka aan usoo galana waxay ahayd axmed inaan la hadlo oon dhaho niyahow dhegeyso hebel niman badan oo lacag ka soo qaatay way ku yimaadeen soo maa wali nimankan waxaan dhex maray ma garatay shaqadii nimankii awal shaqadii waan kan meel cid walba u sheegayay laakiin muddadan kadib nimankan xiriiradii aan kuu sheegi jiray waa yaraadeen waxaana u yareeyay nimankan baaritaanaan waday nimankan waxanay wadaan haddii lacagtana way ka timid haddii anigana nin Soomaaliyeed oo lacagta u baahanna waan ahaa lacagtana lacag wadan meel walba ka timid oo mas'uuliyiinta ruuxana qaadayn ma jirto waxa ay nimankan wadaanne waxa ani maanta aan diiday qof kale oo qaadanaya bari baa jira oo sameynaya waa sida ay seeraar iyo xidiga u sameynayaan iyo ninka la yiraahdo jahan bari qof kale waxa soo bixi mucaarad hadaa aragtay bari qof kale oo mucaarada oo qoryo wato ciidamo urursanaya waa wixii ani aan diiday ogow in axmed waxaan inaan dhahaa uu niyo is ilaali marka waxaan arkay nimanka inay nala joogaan ay dhaheen marka waxaan ogaaday axmed haddaan la tagay aan u tagi lahaanay khatarteedu inay kasii badnaan lahayd saa darteed waxaan go'aansaday inaan horta meesha iskaga tago iyaguna waxay rabeen inaad baajiso inaad la kulanto nimanka marka tashwiish inay geliyaan bay rabeen marka nimankan marka cidda la shaqaysay iyo cidda wax u sheegaysay waxaas oo dhan waan ogaaday already oo madaxtooyada markaasi warbixinta waxaa jirta marar qaarkood nin saaxiibka intuu ku soo waco inuu si warbixin adoona ogeyn warbixin adiga muhiima lagaa qaato adigu ma ogid ninkan inaad caawinayso laakiin adoo saaxiibtinimo ah yaad ula xiriiraysaa laakiin xogta uu kaa rabo already uu kaa qaadisaa ninkaasaad u shaqaysay marka waan ogaaday meesha in dad badan ay joogaan niman xataa siyaasiyiin wasiirra inay la shaqeynayaan nimankan aniga waxaan go'aansaday maalintaas inaanan madaxtooyena soo gelin kismaayana aan ka baxo totaliba waan wixii baan isku dubaritay waxaan sameeyey markaa wixii kharashaad aan hayay lacagihii meelihii aan kala gelin karo hatta lacagtii ku jirtay dahabshiil waan soo bixiyey wixii meelaha aan kala gelin karo baan kala geliyey yaa jirtay marka lacag kale oo aniga shakhsiyan akoon aan u furtay salaama bangi baa jiray